وقيبتني بوغا New Concept English Practice and Progress. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with Susman Official Channel. waxaa shirkan ku baran doonaa insha Allah hadduu ilaahay kala noqdo Unit 3 Unitkii saddexaad ayaanu ku baran doonaa ee buugga New Concept English Practice and Progress. waxaa inoo soo dhammaaday ama halkaa noogu soo idlaaday Unit 1, Unit 2. This is the third unitkii saddexaad ayaa noo bilaabanayo. Passage 49 ayaa noogu bilaabanaya. Passage 49 ayuu nooga bilaabanayaa. waa sheekadii 49aad ee buugga New Concept English Practice and Progress. waxaa ciwaankanaga ah cashirkan The End of a Dream, dhammaadka riyada. The end waa dhammaadka of a dream, riyo dhammaadkeeda. Tired of sleeping, isagoo ku daalay on the floor, jiifka ama seexashada sagxadda. ayaama nin dhalinyara in Tahrain saved up ayaa waxa uu keedsaday ama dhigtay for years sanado to buy si uu ugu iibsado ama uu gato a real bed, sariir dhab ah. For the first time, waqti ugu horeeyay in his life ee noloshiisa, he became wuxuu noqday the proud owner, milkiilaha ku faano of a bed, sariir whitaasoo had lahayd springs moolo. Springs markaan waxaa la yiraahdaa moolada, shay markaa ku fadhiisato hoos kula degayo haddana kula kacayo, wax markaad ku budbudo kor kuu tuurayo. Springs moolo. And a mattress iyo jodari. Because maxaa yeelay the weather jawigu was very hot, cimiladu aad ayay u kulaayeen. He carried wuxuu u qaaday the bed, sariirtii onto the roof, saqafka of his house ee gurigiisa ayuu u qaatay. He slept waxa uu u seexday very well, si aad u fiican, for the first 2 nights, labadii haween ee ugu horeysay. But laakiin on the third night, habeenkii saddexaad, a storm, tuufaan blew up ayaa kacday. A gust of wind, dabeel xoogan oo qulqulata oo si kadaa usoo kacday, swept ayaa xaaqday the bed off, sariirtii the roof ayay ka xaaqday, and sent waxayna u dirtay it crashing iyadoo burbursan into the courtyard, deyrka bilow hoose. The young man, ninkii dhalinyarada ahaa, did not wake up, ma uusan kicin ama toosin until ilaa the bed, sariirtu had struck ay ku dhacdo the ground, dhulka. Although inkastoo the bed, sariirtu was smashed to pieces, cadcad ay u kala jajabtay, the man, ninka, was miraculously unhurt. waxaa si mucjiso la uusan u waxyeeloobin. waa uncommon causes, waxyaabaha mucjisada ah sida lama filaanka u dhaco ee dadka si u badbaadaan. waa miraculously unhurt, si mucjiso la inuusan waxba ku waxyeeloobin. When goortii he woke up uu toosay, he was still on the mattress, weli waxa uu saarnaa joodarigii dushiisa, glancing at asagoo dhuganayo ama u jaleecayo the bits of wood, alwaaxyadii yaryaraa, and metal iyo birihii sariirta kuwii ka kala firdaaday oo ka kala dhacay, that lay around him, kuwaasoo daadsanaa agagaarkiisa ama yaalay dhinacyadiisa ama gaarkiisa. The man, ninkii, sadly si murugo leh, picked up ayuu wuxuu u qaatay the mattress, joodarigii, and carried it wuxuuna u qaatay into his house, gurigiisa. After he had put it on, kadib markii uu dhigtay the floor, sagxadii uu saartay, he promptly wuxuu si dhaqsi leh weyntii u aaday to sleep again, inuu mar kale seexdo. Comprehension waa fahan, and praises iyo dulucda kooban. Answer, ka jawaab these questions, su-aalooyinkani, in not more than aan ka badnayn 85 words, 85 eray. 85 words. What did a young man in Tahrain buy? maxaa uu nin dhalinyaraha ee Tahrain joogay uu iibsaday for the first time, waqtigiisii ugu horeeyay in his life ee noloshiisa? Was the weather jawiga ama cimiladu hot, ma kulaayeen, oo cold mise waay qabowaayeen? Did he sleep on the roof, ma wuxuu seexday saqafka guriga of his house ee gurigiisa or not? Because ayaa waxay noo tahay joining word.
Was the bed sariirtu swept off the roof? Maxaa laga soo xaaqay saqafka during a storm inta lagu guda jiray tuufaan 3 nights later 3 haween goor dambe or not? Was the man ninkii unhurt ku dhaawacmay or was he seriously injured mise si halisa ayuu u dhaawacmay? Was he still on the mattress weli ma wuxuu saarnaa joodarigii or not mise maya? Was the bed sariirta in pieces macadcad ayay ahayd or not mise ma aysan noqon? Did he carry the mattress miyuu qaatay joodarigii indoors gudaha or not mise ma uusan u qaadan? Where did he put it? Xagee buu dhigtay? Did he go back to sleep? Ma dib buu jiif ugu laabtay or did he stay awake mise waa uu soo jeeday? Step up your speaking power. Step up your pronunciation. Unit 3. Passage 49. The end of a dream. Tired of sleeping on the floor, a young man in Tehran saved up for years to buy a real bed. For the first time in his life, he became the proud owner of a bed which had springs and a mattress. Because the weather was very hot, he carried the bed onto the roof of his house. He slept very well for the first 2 nights, but on the 3rd night a storm blew up. A gust of wind swept the bed off the roof and sent it crashing into the courtyard below. The young man did not wake up until the bed had struck the ground. Although the bed was smashed to pieces, the man was miraculously unhurt. When he woke up, he was still on the mattress, glancing at the bits of wood and metal that lay around him. The man sadly picked up the mattress and carried it into his house. After he had put it on the floor, he promptly went to sleep again. Comprehension and praises. Answer these questions in not more than 85 words. What did a young man in Tehran buy for the first time in his life? Was the weather hot or cold? Did he sleep on the roof of his house or not? Was the bed swept off the roof during a storm 3 nights later or not? Was the man unhurt or was he seriously injured? Was he still on the mattress or not? Was the bed in pieces or not? Did he carry the mattress indoors or not? Where did he put it? Did he go back to sleep or did he stay awake? Thanks. ألف لو كنت بي ألف لو سنبي ألف لا قذي